سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إلهي سبحانه وتعالى في سورة الكهف waxa uu inoogaga sheekeeyey qisooyin aad iyo aad u fara badan. suuraddanna waxay ka kooban tahay cadadka aayaadkeedu 110 aayadood. sidaasoo kale waa suurad maki ah oo maka ku soo degtay inkastoo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan aayado iyada ka mida ayaa laga reebaya, laakiin ka reebistaasi daliil bay u baahan tahay. markaad eegto mawduucyada ay ka hadlayso iyo dhidibada ay u aasayso tawxiidka ilaahay jalla wacalaa ee keliyeyntiisa, waxay suuraddan cad inay tahay suurad makiyahoo maka ku soo degtay.
marka laga hadlayo xagga tartiibta soo degitaanka waxay ku xigtay suuradda aynu naqaano suuratul ghaashiya oo hal ataaka xadiithul ghaashiya suuraddaasay soo degitaanka isku xigeen sababu nusuulkeedana sababyo fara badan oo isu dhowdhow baa la sheegaa laakiin waxay isugu soo uruuraysaa nimankii carbeed ee wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhexdooda ku noolaa shareecada islaamku soo degtay markii ay arkeen in diintiid aad loo raacayo oo wafdiyo aad u fara badani nebiga u imanayaan laba nin ayay direenoo waxay idhaahdeen war innagu diimo kale diimaha waxba ka garan maynee labadiinaa nin waxaa tagtaanood waxa ka soo weydiisaa nimankii yuhuud lo odhan jiray bal diintan uu nebi maxamed sheeganayo saxnimadeeda oo waxaa jirtay la dagaalanka diinta islaamku waxay soo martay maraaxil kala duwan bilowgii waxay isku dayeen nimankii quraysheed inay awood ku muquuniyaan laayaan xidhaan go'doomiyaan awood inay u isticmaalaan joojinta shareecada islaamka markii ay taa waxba ku waayeen ee ay awood ku joojin kari waayeen waxay bilaabeen marxalad labaad oo ah tashkiik in dadka diinta laga shaki geliyo xaqiiqada inay diintani jirtana in dadka si kale loogu tilmaamo lahaa diin jirta maaha daba iyagu diinta waxba ka garan maayaan diima horena may soo arageen niman sanab caabuda iska ahaye laakiin nimanka yuhuud la yidhaahdaa waa niman iyagu kutub hore soo akhriyey markii ay u tageen baa waxay ku yidhaahdeen war ninkaasi inuu run sheegayo 3 su'aalood soo weydiiya lianna alyuhuuda qawmu buhtin nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waa qowm khayaanada iyo munaafaqadda heerka u sarraysay ka taagin ilaa maantada aynu joogno lama arko yuhuud oo cid dagaal foolka fool ah la gasha haddana cid kasta oo dunida lagu qaadayo dagaal dabaday kaga loohayn waa almuxarak alasaasi hadday dowlad weerarayso mid bay istaadhayaanoo ay iyagu dabada ka wadaan rabshadaha dunida ka socda oo dhanna saamayn bay ku leeyihiin caqliyadooda iyo taatikada iyagu ay wadaan iyo dhaqaalahooda ayay marar fara badan ku bixinayaan sidii wax loo kharibi lahaa markaa waqtigaana intii ay kari karayeen unbaa intaasoo quraysh bay u soo dhuubeen markaa waxay idhahdeen 3 su'aalood soo weydiiya hadduu 3daas su'aalood garto arrinkiisa waynu la eegaynaa hadda may odhan xataa waa dhab arrinkiisa wuxuun baynu u soo dhowdhowya waxbaynu la eegaynaa bay yidhahdeen laakiin hadduu 3daas su'aalood ka jawaabi waayo oo waxba idinka sheegi waayo nebi maahe been buu sheegaya waxay yidhaahdeen waxaad soo weydiisaan ruuxda bal waxa loo yaqaano ruuxdu waxay tahay oo qofka bini aadamkii jidh iyo ruux buu ka kooban yahay waata qur-aanka fi suura yas'aluunaka can iruux fi suurat alisraa ayuu ilaahay su-aashaa kaga jawaabayo
aayado ka hadlaya ay ku soo degeen. waxaad kaloo soo weydiisaan bay idhaahdeen fitya, koox dhallinyara oo diintooda la baxsaday oo god seexday oo wakhti aad iyo aad u dheer hurday, iyaguna moodaya inay maalin hurdeen ama maalin badhkeed. waxaad kaloo soo weydiisaan nin boqoroo dunidoo dhan maamulkiisu gaadhay waa dilqarnayn. markaa saddexdii markay nebiga weydiiyeen, nebigu markiiba waxyi kumuu soo degin ee waxyigii dib buu uga yaro dhacay. sababtana waxayd insha allah buu ka tegay. walidaalik suuradda waynu ku mari doonnaa walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika hadan ilaa an yashaa allah. waa lagu canaanta nebi maxamedow ha odhanin shayna berri baan sidaa samayn doonaa adigoo raaciyey ilaahay inuu doono mooya. laakiin wuu soo degay waxyigiiyo suuradda kahf 2 su'aalood baa lagaga jawaaba. dilqarnayn arrintiisa waa lagaga jawaabay, waa ninkaa boqorkeed dunidoo dhan maamulkiisu gaadhay. waxaa kaloo lagaga jawaabay fityatun aamanuu birabbihim oo fityatulkaafiyo asxaabulkaafiyo suuraddaba loogu magac daray. sababu nusuulkeeda arrintaas ayay ahlu cilmigu sheegaan.